kadib markii ay waayeen hoy ka celiya dhaxanta dabaysha goobo waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale raashin ay quutaan dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Burco oo ay la soo daristay duruufo adag oo ku wajahan guddiga nolosha aadamaha iyadoona lagu guda jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaa saaka maran u kuurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi waxaan halkaasi kula kulmay gudoomiyaha xaafadda barakacayaasha magaalada Burco Ibraahim Soomow Ibraahim iyo qaar kamid ah dadka barakacayaasha ee degan iyagu xaafadaasi waxaanay baaq u direen ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay la soo gaaraan gargaar bini'aadantinimo degdeg oo meeshaan deganay mana hooyin ma haysano mana raashin ma haysano soonkan naftiis mana wax ka afurno wax ka soomno ma haysano soonka mana gabagabada hadda taagnay inii mana raashin iyo mana dadka mana federal wax kasta baxsanay dadka muslimiinta Ilaahay ba gargaar leenoo gargaaran dawladda dadka muslimiinta dalkii dibadda joogan ba ka codsanayna ni hooyin nisyo mana dadka muslimiinta mana na taakulaano mana Ilaahay waa ku roonya maaragtay oo qaabilaan ba aad iyo aad u doonayna dad masaakiin meel degan oo heer koonfur ba kuwan haysano dadka muslimiinta mana dalka dibadda wada joogan mana dadka muslimiinta wax ka doonayna أني معناها دتك مسلمين تجرجار دقدق معناها أنا نسيو يا دونينا السداس بق. أنا وحنا كعصر الدولة الصومالية اللي انتبهت يجودها إن لا عاوية الله وحنا هاي سنة ماله قرية ما هاي سنة كاشين ما هاي سنة وحبرش ما هاي سنة ومدة مسلمين تو إن نرسي دقدق ولا صو عاوية الله وحنا هاي سنة ماله وحنا كويدنا ما هاي سنة ومدة الصومالية اللي إنسان وساق حني إيجان وسجونا hoy aan ku hooyana ma haysano waxaan ku iri soonka wax lagu soomo ma haysano maalmaha qaarkood soonka biyo cad baa lagu soomaa waxaan ku iri ummadda Soomaaliland dalkooda aan joogno waxaan doonaynaa inay na caawiyaan وبرواقة آدم محمد شبكة عالمي قود وين نيوز مقالة برعو